يشددو وقوم صلها فوحة ما يشددو أفهم سلها أمسي ما يشددو وقوم صلها. So waan salaamay waa walaashina Nuura Soomaali meel walba joogtiin waad salaamantihiin kashi Allah baa idinku salaam insha Allah waa walaashina Nuura maanta waxaa idin wada barnaamij aariye xagga sportka raba insha Allah inaan ka hadlo xagga Soomaalidana waxay aad ugu yar yihiin waa xagga sportka marka insha Allah sportka raba inaan idin la qaybsado really sport إن شاء الله معنيه سيشرح حادث أنا ذي شيء دونا إن شاء الله أنا جوحان حاجتي معه وحن صبرتي حاجة سبورت إن شاء الله ريلي أنا جهان مركز كهالله أمسك بدك على صومالي مركز ريلي وايو عيل كعاف ماد معهن واليال عيل كعاف ماد معهن wuxuu keenaya jiro wuxuu keenaya kolestarool wuxuu keenaya dhiigkar wuxuu keenaya caafimaad darro wuxuu keenaya socod darro wuxuu keenaya labis xumo wuxuu keenaya xitaa anaga waan ka xishoonayaa xagga sariirta wanaag kuma wanaagsana marka insha Allah cayilka walaalayaal iska ilaaliya intaad iska ilaalin kartiin waxa horta waxay ugu sii daran tahay dadka qurbaha joog waayo qofku hadduu qurbo joogo oo maaragta uu dhidideynin uu harjadeynin wixii dhinac ku fariisanaya marka taas waa laga fiican yahay insha Allah waxaan rabaa taas sidee baad uga bixi lahaydeen gabdhaheeniyow sidee baad uga bixi lahaydeen ayaa idinka rabaa insha Allah taasna waxaa keenaya marka xag dadaalka horta insha Allah ilaahay baa ahaa laakiin adna inaad dadaashid insha Allah isku day abaayaal iyo booyaal insha Allah wiilasha intaad iska ilaalin kartiin insha Allah waxaan rabaa insha Allah xagga gymka inaan ka hadlo aniga waxaan bartay traininka xagga sportska insha Allah waayo waxaan uga hadlayaa cayilka anaa soo arkay really anaa soo arkay salaada markaan tukado ilaahay waxaa laga baryaa ilaahu cidaabtaga ilaali ilaahayo waxa xuniga ilaali anigana waxaan ku duceysan jiray ilaahu cayil isii ayaan ku duceysan jiray cayil aan qabo dartiisa marka إن شاء الله هرت وحا أرسو أركتت أيا في عن وات كوانتو إسا ما أنتن أبان كوانتوي عيل إنانا بريين قف عيل سن عدنا أركون وحن جعل هاي إن ما ركت على طليو أيا ربا إن شاء الله مرك أبا يال يا بويال أنا جه مرك إن كهال والله مرك إن كهال نلاشي واديابسين تدقو حن هانجر الشهم مركو عبيو hadduu sidii malabka maarta saa u jitameenin ima ahaan jirin shaah مثلا بريس على كرنية هادوس السليد ماركت مركا بريس ساق عندي لازم أنا قعدت على الجوع نجري سو مركا قعدت ساق وصل درتيد السليد كده إنين أنا قعدت إيه ما أهانجرين ريالي سيدا باستد أكلت هاتس باستد قعدت هالكا سليد إسكوهورين أنا سليد ما نركجين أنتو ما نركجين ريالي مركا horta wax walbana waa la bartaa waana laga waanto insha Allah waxaana jeclaa idinka inaad ka waandooban doontiin aad maaragta insha Allah garab igu siin doontiin insha Allah gabdhaheena wixii caawinaad u baahan insha Allah commentarka igu soo qori doontiin insha Allah ila soo xiriirin doontaan rajeynaya aniga waxaan ahaa 85 kiilo oo hilib ayaa isaarnaa maantana waxaan ahay dad u jeedeen marka insha Allah 55 kiilo nahay waan ku faraxsanahay ilaahay maanta intaas inta iga dhigay ilaahay caafimaad ha ugu siiyo insha Allah waxaan ku dadaalay xagga sportska kow waxaan iska jaray cuntooyinka waayo aniga markaan qurbahan Soomaali markaan ka soo tago qurbaha aan joogo aan soo galay ayaa waxaan aad u cuni jiray geed macmacaan aniga ma aqaan af Soomaali ahaan waxa waaye geedkan magaciisa maxaa la dhahaa sida burgerka kala loo sameeyo korna waxa loogu shubaa sokorta dhalaalsan hoosna waxa laga geliyaa mamalaado marka kaas aad u cuni jiray really 6 7 8 aad u cuni jiray adiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala maxaad ka rabtaa hadda ina ooyo dhar ii galo ayaan waay
dhar ii galo ayaan waa inaa ooyo ayaa danta igu qasabtay. maxaa yeelay adigu sanad oo kale markaan saa ahaa baa waxaan eray naanuuray saan tala ma ahane maxaan sameeyaa ya waayo waxaan haddii qof garab kugu siinaynin really heerka ma gaaraysid. yaa war idinku daalinin marka aniga waxaan go-aan ka gaaray ilaahay subxaana watacaala iguna saaciday cuntooyinkii inaan joojiyaan cuni jiray mamacaankii tirada badnaa salarka tirada badnaa really waxaan joojiyey briiskii iyo baastida. hadda dadka waxaan ahaan jiray canjeerada aada u jecel ayaan ahaa, canjeeradii waan joojiyey, beerkii la cunaa waan joojiyey, adiga wixii dhan baan joojiyey. maxaa sameeyey marka salarka ayaa cuni jiray, biyaha badan ayaa cabi jiray, habeenkii waan ordi jiray waayo maalinta dhan qof ordisa ayaan ahaa, shaqeynaysaa mase iskuuli wax jaran ku mashquulsan ayaan ahaa. habeenkii ayaa ordi jiray. ilaahay wuxuu igu gargaaray meelaha jiimka la tago inaan tago, dad kontaakti badan la yeelo oo dad la xiriiro insha allah oo maaragta xagga traininga xagga sports adi wixiiba haddana waxaan sii siiyey interesse waxyaalo waxay la noqdeen really subxaanallah cajiib ah. anigoo daalna guriga imaanaya jiimka aadaya anoo waxaan imaanaya fax ah oo furfuran oo qoslayo oo happy ahay oo seexan karo oo maasha allah niyadaada dhan nadiif ay tahay ayaan guriga kusoo laabtaa. gurigii baa maalinta dambe waxay adiga waraan 2 bilood 3 bilood markay kasoo wareegtay waxaan ku kacay gurigii ayaan ku kacay. maxaan sameeyey wixii baasta ahaa, bariis ahaa, sokor ahayd, macmacaan dhan ahaa ayaan horta waxaan ku daray meelihii lagu dari jiray wixii aan dad siin karana waan siiyey. calaa kulli xaal really horta ilaahay wuu iigu gargaaray. marka soo ani waxaan leeyahay dadaal, haddaada dadaalin hadda meel ma gaaraysid. sida maaragta waxaa kaa xumaanaysa labiskii, waxaa kaa xumaanayo haddii ninku qabo oo ninka uu caadi yahay gabadhii ay cayilan tahay waa foolxumo, really waa foolxumo. waayo qof ilaahay subxaana watacaala wuxuu dareen buu ilaahay ku siiyey, raxmad buu ilaahay ku siiyey. gurigaaga markaad joogtid sawjkaaga aad la joogtid qurux qof caadaysan markaad tahay waad labisan kartaa, quruxdaada ayaad tusi kartaa. laakiin qof buurin markaad tahay oo baatib isku soo siisay maxaad tusaysaa? waxna halkaas ayaad usoo faraaqsatay, baatigi maanta dhan aad la wareegaysay ayaad kusoo fariisatay. anigu taas mahaan gabdho badan waan arkay waana ka waanin lahaa marka really haddii ninku qabo anigaba haddii ninku qabo abaay macaan insha allah waxaan rabaa gabadha ugu wanaagsan oo ninkeeda markuu guriga usoo socdo uu dhararayo noqo. hilibka haddii hilibku saaran yahayna dadaal insha allah. videoga dambe maaragta idin tusi doonaa guriga idinkoo joogtana meel aadeynin haddii ilmo qabtid iyo haddaad ilmo qabin aad samayn kartid insha allah ayaa idin tusaya. hadduu lahayd ma idin la qaybsan doona insha allah step by step insha allah hadduu lahayd ma marka maaragta horta waxaan ka bilaabaysaa tuli baad ka bilaabaysaa oo joojinaysaa waxaad cuni jirtay dhanaad joojinaysaa, waxaad isku badinaysaa xagga salarka caafimaadkaaga. waxaa kasii fiican geedkan la yiraahdo salarka waxyaalahaas inaad cuntid isku day insha allah. marka waa kaasaa kolba anigu waan joogaa insha allah. waan maaragta waan haddii garab igu siisaan insha allah meel waa isla gaari doonaa hadduu lahayd ma. waan idin salaamiyaa kaashiya laabta idinka jeclaa insha allah waa walaashiina. marka insha allah waa inoo videoga dambe insha allah hadduu lahayd biidna allah. marka waxaan marka inuu idinku sagotinayaa unsi maisha dido wako unsalaha fooxa maisha dido by next video waa idin salaamayaa.